sida ugu fudud ee wax loo kiciyeen baradona maanta insha Allah taala macallin ila socdo aad bay u kala muhiimsiin akhriska qoraalka af Soomaaliga uu fududay laakiin hadii meel qaldan laga bilaabo qofku uu ku daba gadoomaysaa waa laga inuu jahwareer la kulmo oo qofkii marka daba ka caajis markaad ugu caajis marka hore way kala muhiimsiin barashada ama kiciska afka Soomaaliga waxaana ugu horeeya marka hore adigoo kan aan baranin inaad kan baratahay waa khalad maxaa dhacayne kani waa hal dhawaaq kani wuxuu ka kooban yahay dhowr dhawaaq marka intaadan horta 3 dhawaaq 4 dhawaaq baranin marka hore waa aad barataan hal dhawaaq Soomaaliga waa dhawaaqyo la isku geeyay waa xarfo isku tagtagay xarfaad marka waxa ka horeysa marka hore in xarafka hore soo barato si loogu dhawaaqa inta coday ka kooban yihiin inta xubin ay yihiin marka soo barata ayaa waxaan la qaadan karaa marka waxaan leenahay salaan hadii ariga maxay waa kana waa a kana waa al hadii la isku reebo maxaa noqonayaa nal muxuu dhawaaq ma dhawaaq leeyahay nal wuxuu hal dhawaaq leeyahay bas nal hadaa aragto hal dhawaaq waa nal laakiin nadaafad markaan fiirno ka war waxaan leenahay na dha fad saddex dhawaaq buu leeyahay macallin saddex dhawaaq marka adoon hal dhawaaq soo baran hadii saddex dhawaaq lagu geey ka war aad bay ku isla culusahay tabcan marka waxaan leenahay macallimiinta af Soomaaliga dhiga fadlan idinka raaliya dhawaaqyada hal ilaaliya ama xubnaha xarfaha af Soomaaligu nal ay hadda joognaa hadii aan ku sii darna wuxuu noqonayaa na dha fad fiiriyada na dha fad saddex dhawaaq kooban kana waa hal dhawaaq horta kan aan barano kadib waa gudbinaa sidoo kale fiiriga kan waa cag waa fiir cag hal dhawaaq bas waay hal dhawaaq bas kan maxaa waay a la al kan waa saddex dhawaaq marka hal dhawaaq iyo saddex dhawaaq isku mid may marka hore markii aan muhiimsan in la barto marka hore waxa muhiim ah halka dhawaaq kadib laba dhawaaq kadib saddex dhawaaq afar dhawaaq shan dhawaaq aan gudbi doonaa ma garateen marka way kala muhiimsiin ereyada sida ugu horeysa waa kan inuu qofku marka xaraf u barto hal dhawaaq u barto hal cod laba cod saddex cod afar cod shan cod af Soomaaliga xaraf ka badan ma jiraba shan dhawaaq shibana oo muxuu ahaa ama jumla ama erey ka kooban shan dhawaaq ka badan ma jiraba intaas ayaa ugu badan marka sidii uu kala horeeyaan in loo qaataa muhiimsan anjaar maxalli si uu kala koreyso ayaa loo cunaa hadii adigoon hal dhawaaq baranin oo laba dhawaaq baranin shan dhawaaq lagu geey maxay imanayo inaad ku wareerto oo culeyskaaga yimaado laga yaabo marka hala kala hormariyo hadii aad u baahato inaad barato Soomaaliga waxay igala soo xiriirtaa lambarkan eberli hal 5 91 40 86 ama 25 5 91 40 86 aad u maasatahay hadii aad Muqdisho iyo ereeda joogto waxaad soo booqan kartaa xarunteena Baarubax waxaan inaa maalmaha caadiga sida Sabtiga Axadda Isniinta Talaadada subaxa hore ayaan ignaa waa maas